kusoo dhawaada daawadayaal waa mar kale iyo Somali for All TV oo aad si weyn magaalada Amsterdam ugala socotaan. Barnaamijkeena caawa ayaan diiradda ku saaraynaa Afrika Daah oo ah carwo sanadkii mar lagu qabto dalkan Holland. Waxaana sanadka 2012 fursad u yeelatay in lagu qabto xafladaasi magaalada madaxda Amsterdam ee dalkan Netherlands. waxaa sidoo kale carwada Afrika Daah isugu yimaada hay-adaha waaweyn ee caalamka gaar ahaan kuwa dalkan Holland u qaabilsan gargaarka bini'aadanimada ee qaaradda Afrika kuwaas oo dhammaantood ka howlgala adduunka saddexaad gaar ahaan sidan soo sheegayba Afrika. sanadka 2012 ayaa si weyn loogu lafaguray sidii loo joogtayn lahaa taageerooyinka iyo mucaawinooyinka adduunku siiyo qaaradda Afrika. waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay carwada Afrika Daah ee sanadka 2012 ee dalkan Holland. waxqabadka ururada gargaarka ka dhisan dalkan Holland ee ka howlgala qaaradda Afrika iyo doodo cilmiyeysan oo ay dadweynuhu ka qayb galayeen iyo farshaxan. Zimbabwe did not have the SADC to guarantee the process and the African Union to guarantee the process. We would not have made all these gains. And to thank the Africans that are here from the regions they are from for the work their countries are doing through the different regions to ensure that the Zimbabwe situation goes. So thank you very much everybody. Maar vooral die kinderen in Somalië, de boeren in Mozambique en de vrouwen in Ethiopië. Daar doen we het voor, daar doe ik het voor. En mocht ik dat ooit vergeten, heb ik altijd mijn armen. Dank u wel. The wonderful Aries Golden. So yeah, the winner is, without any doubt, Aries. Oh, big round of applause. Aries, come up here. Oh. We do need the word. Yeah, absolutely we do. I believe that the cheesy question at this stage is, Aries, wat gaat er door je heen? Ja, ik kan het niet beschrijven. Het is zoveel duizenden. Ik heb dit niet verwacht. You're lying. Nee, ik kan het niet beschrijven voor de eerste keer. Ik weet het niet. Ik heb gewoon geen woorden voor. Ik wil sowieso mijn zus danken. Ik wil alle modellen danken. Ik wil jullie allemaal bedanken om dit mogelijk te maken en voor jullie aanwezigheid. Ik ben helemaal zeker, mijn hart is Good stuff, man. Congratulations. And of course, everyone goes away with an award as well. Congratulations. One more time, guys. Well done, everyone. Really well done. Ik kom uit Kaapverdië en is een heel lang reis geweest. En in de tijd van nu, mensen hebben verbondenheid nodig. Mode is maar een middel om ons te laten uitdrukken van ons gevoel. Dat is ook alleen maar niet in Afrika. Dat is alles doorheen. Vroeger waren al die continenten samen. En glamour is overal en ook in Afrika. Ja. Je bent de winnaar vandaag, dus wat dit betekent voor jou? Er zijn geen winnaar, er zijn geen verliezer. En het is alleen maar de herkenning voor de hard werken. En zonder al mijn modellen en al die mensen die een bijdrage hebben geleverd aan dit show, was dit niet mogelijk. En voor mij is dat de verbindenis die ons met z'n allen brengen ik kan het niet beschrijven. Het gewoon no words for it, man. Oké, succes. Succes met je. My name is Iken Azuike. Okay, Iken, you was presenting the mode show. And what's your first impression about African mode show? I think it was impressive. I think there was a lot of talent on show. These people worked very hard to produce their work, and it was well appreciated. Everyone was clapping and everyone was happy.
How can we bring more African, how do you say, people who want to also see this show? Well, I think there is a big interest in African fashion all over the world. It's booming, so more and more people do want to see it. But we need to try and find more designers to present their work over here. So let's go to the fashion schools. Let's talk to people and let's invite them to events like this. Nice, thank you. Hoe kunnen we gewoon meer Somaliërs gewoon betrekken bij de modeshow of modewereld of designerwereld? Ja, nou het is belangrijk dat de Somaliërs gewoon weten dat hier ook een show wordt gehouden. Dus als dat gewoon een beetje bekend wordt gemaakt, dan komen ze ook automatisch, denk ik. Ja. Wat is jouw bijdrage bij de Afrika-dag? Mijn bijdrage, ik ken de ontwerpster, dus die had mij gevraagd en ik liep dus mee. Yeah. En hoe zie je gewoon jouw toekomst? Mijn toekomst? Nou ja, niet in de modewereld. Het is gewoon iets dat ik 1 keer heb gedaan. Voor mij was het gewoon leuk, 1 keer, maar that's it. Kunnen we volgende jaar meer Somaliërs gewoon kunnen terugzien? Want ik zie nu allerlei cultuur en het is rijk aan cultuur. Kunnen we meer Somaliërs verwachten volgend jaar? Ja, ik hoop het wel, want heel veel Ethiopiërs doen mee, heel veel Nigerianen doen mee. Zo, het lijkt me wel leuk, maar of ze gaan komen, dat weet ik eigenlijk niet. Het hangt er gewoon vanaf, of de mensen het willen. Yeah. Afrika heel erg rijkdom heeft, heel divers, verschillende culturen. En dat hebben wij zo kunnen zien door deze modeshow. Hoe kunnen we gewoon meer Afrikanen bereiken met, hoe zeg je dat, onze Afrika-dag? Nou, dat is heel leuk dat je dat vraagt. Nou, bijvoorbeeld de social network door onze website. We hebben een Afrikaanse website gebouwd waar alle Afrikanen bij kunnen komen. Waar ieder Afrikaan zijn eigen cultuur kan bevinden. En vanuit daar ook contact kan leggen met andere Afrikaanse culturen. Bijvoorbeeld Ghanese kunnen daar zichzelf vinden, eigenlijk ieder Afrikaan. Maar bijvoorbeeld ook Somalische Afrikanen kunnen gewoon op die website hun eigen website of eigen vak op Somalië bezoeken. En dan kunnen ze daar gewoon live tv bekijken, live muziek, nieuws, video's en documentaires over Somalië en andere culturen in Afrika. Een mooie flyer zo te zien. Hoe bereiken jullie publiek, bredere publiek? Sowieso zijn we bezig met online via internetmarketing, zeg maar. Dus via Facebook promoten we een beetje, zeg maar. En gewoon acquisitie, gewoon met mensen praten. En vooral op evenementen zoals dit, Afrika Dag, willen we gewoon ons product laten zien. Een klein beetje presenteren. En we hebben al een video gemaakt voor Afrika, zeg maar. Die laat in het kort zien wat Afrika allemaal biedt, zeg maar. En die staat nu nog op internet. Maar het is de bedoeling dat later het op meerdere plekken staat, zeg maar. Zodat mensen het blijven zien. Zodat ze zo echt gaan registreren op de site. En gaan kijken wat die site hun kan brengen, zeg maar. Dat is, ururka Hirda ayaa soo bandhigay waxqabadka iyo sida ay Soomaaliya gudaheega uga shaqeeyaan. What we have seen is that, for example, you can stop education in a period of high insecurity. For example, the clashes happen somewhere, and you don't know, and you are not prepared, and you don't know even when it will finish. So in that period, you close the schools and say, children stay at home, and we will check the situation, and then we will call you back. One budget. Mm-hmm. How do you make the choice? Okay, this is for girls' education, that is for security or economy, or how does that work for Hirda? Our security people is the community, and what we work most of the time is the security ownership. This is your schools, these are your children. You must work for them, and you must discuss with any authority, regardless of which comes into your area. So Hirda's policy is to back the community, not to come in the front and say, this is what we are going to do, we will do the security. So consulting with the community is and empowering them in order for the sake of the ownership is the best option that we have seen, and that's what Hirda has succeeded. Afrika Dag, ma islada maanta hawshaadii iyo arrimihii aad waday dad badan baad gaarsiisay. aad iyo aad waayo African Dag markii la soo qaado arintaana kama marna waayo arintan gudniinka gabdhaha waxa isticmaala ilaa 28 wadan oo Afrikaan ah saas maadaama u baaxadeeda u weyntahay ayay maantana muhiim u tahay macnaa lagu daro macnaa mawduucan maanta laga hadlay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay gaar ahaan hawlihii aan Netherlands ka qabanay Soomaali kaliya kuma ekaan Afrikaan oo dhan inaan macnaa aan ka jeedinay
miss africa netherland inay lahayd sahri waa maamaday wadano badanna aad soo martay hawshaadii markaa soomaalidu kuma koobna waxaan filayaa gudniinka fircooniga africa oo dhan baad gaadhsiinaysaa in laga joojiyo arrintaas wallaahi annaga hadda afrika oo dhan aan u qaadanay macnaha tracker u noqonnay ama aan u horseennay waxaa ka mid ah in muxuu ahaaye annaga ayaa bilownay waagii halkaan la yimid waayo annaga gudniinka ugu xun oo fircooniga la yidhaha ayaan isticmaalaynay afrikaan naga soo horreey way jiraan lama dareemin laakiin waagan halkaan imaanaa la wada dareemay anigana waxa ii sahlan waxay ahayd shaqadeeda Soomaaliyan ka soo bilaabay waxoogaay macnaa waxbaa ii bilawnay wasaaradda waxbarashadan ka shaqaynayay ururka haweenka Soomaalidan la shaqaynayay waa waxyaalo fara badan oo dadka kale aan uga horreeyay ayaan qabay marka way aragnimadeedii oo halkaas aan ku soo qaatay ayaan halkaan aan ku waday sidaas ayaana horseed aan ugu sii noqonay maxaa afrikaanka halkaan ah oo ayaga ama xishood darra ama aqoon darra ama way aragnimo ka reebtay taas ayaan ku faraxsanaa inaan magaca Soomaali aan ku wadnay afrikaanka oo dhan xafladan wallahi waa xaflad aad u weyn haddii aan macnaha aan warbixin yar ka siiyo waa xaflad aad u qurux badan oo ay ka soo qayb galeen dadyow fara badan oo ka kala yimid wadamo dhowra sida Afrika, Yurub, Amerika ilaa Asia marka dad badan oo caalamka kala socda ayaa ka soo qayb galay gaar ahaan waxa ka soo qayb galay Soomaali fara badan oo degan dalka Netherlands maxaa halkan kaaga soo baxay hore ma uga soo qayb gali jirtay mise maanta kugu horeysay may waa markii ugu horeysay oo aan ka soo qayb galo xafladda African Daaq runtiina waa macnaha maanta waxaan ka kororsaday way aragnimo fara badan oo wax fara badan ayaan ka kororsaday maanta sidoo hadalku u dhacay inta badan waxaan ka qayb galay mar ay isugu imaanayeen hay'ado badan sida bangiga Rabobank ay isugu yimaadeen hay'ado badan oo sida Novib iyo hay'adaha maartay wadankan aan dawliga ahayn wax qabta iyo qof ka socotay gabar ka socotay safaaradda Malawi safiiradeeda ahayd marka sidoo u dhacay hadalka fiirsa caalamka hadda inta badan wixii la iscaawinayay waxa gacanta la isku siinayay waxaad moodaa in laga sii gudbaayo loo gudbaayo xagga xiriirka dhaqaalaha in laga wada shaqeeyo wadamadu ka wada shaqeeyaan beeraleyda markii laga fiirsho Soomaaliya oo kale anagu danba noogu jiray hadaan dagaal ka gudbi lahayn in dadku ay wax abuurtaan marka runtii dhinacyo badan baa la iska tusaayay dhinac walbana uu muhiim ahaa maaragtay dad badan oo Soomaali oo la kulmay si aada ay u soo dhaweynayeen duqa magaalada Muqdisho oo la sheegay inuu imaanayo laakiin haddana markii dambe la sheegay sababo inuu iman kar waayay isaga u gaar ah waxaan filayaa rajo weyn adiguna waad sugaysaa dadka sugayaad ka mid ahayd in uu Tarzan ina soo booqdo Amsterdam inagu soo booqdo runtii waan sugayay anigu Muqdisho xamar waa magaaladaan ku dhashay aan ku koray aan intaas ku soo leekaaday markii aan maqlay inuu Tarzan imaanayana waxay ahayd diilo weyn oo qof kasta Soomaaliya waliba la yiraahdo maayarkii magaalada xamar iyo maayarkii Amsterdam van der Laan baa isla fariisanaya runtii waxay ahayd maaragtay jaanis aad u wanaagsan buu ahaa inuu ka soo qayb galanayo laakiin duruufo jira daraadiis waan helay mar hore aan anigu ogaaday inuusan maanta imaaneen oo qoladan wax organize garaynaysa noo soo diray laakiin waa ka xumahay wuxuu misgareeyay maaragtay jaanis fiican attention adduunku ma ogtahay ma aha in Soomaaliya in wax lagu siiyo ama gacanta lacag lagu saaro ma aha dadku markay ku qiimeeyaan oo la isku qiimeeyo magaaladan quruxda badan nabadda badan adduunka oo dhan caanka ah Amsterdam iyo xamar markii meel la isla fariisiyo runtii waa qadarin aad u weyn marka waa ka xumahay inuu misgareeyay waa jaanis aad u weyn buu ahaa She knew that this time wouldn't be the last time
sahra naaleeye oo ah iyaduna dadka u dooda xuquuqda dumarka iyo Miss Africa Netherland ayaa iyaguna dhankooda si weyn uga hadlay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ahi uu leeyahay.